ololaha doorashooyinka golaha wakiilada iyo golaha deegaanka oo dalka maalintii labaad ka socda ayaa waxa maanta u lahaa xisbiga muxaafidka ah ee kulmiye maalintiisii koobaad murashaxiinta Samsam Maxamed Cige oo sharaxan golaha wakiilada ee Somaliland iyo Shacayb Muuse Allaale oo sharaxan golaha deegaanka ee degmada Berbera ayaa maanta taageerayaashooda kula hadlay deegaanada Madheera iyo degmada Laasgeel oo ka tirsan gobolka Maroodijeex ayaa waxa ay ugu baaqeen in ay maalinta codaynta fartooda ugu hiiliyaan dhammaan dadkii deegaanadaasi ka soo dhaweeyeen waxa ka mid ahaa hadaladoodii calaamadda uun hubsada sida heeganka ugu tiina diyaar ugu ahaada dulqaata doorashadu waxay leedahay hawlo badan bay leedahay bacadkoo lagu samraabay leedahay qadoodi lagu ridaabay leedahay dhibaatooyin badan baa laga yaabaa idinka soo gaadhaan daryeelada baa laga yaabaa waxyaabo badan baa imanaya waxa la idinka baahay dulqaad inaad u dulqaadataan oo qofku sidoo codkiisa ugu hubsan lahaa inaad u dulqaadataan loo baahan yahay inaad diyaar garowdaan nabadgelyaha ku codaysaan ayaa la idinka baahan yahay insha Allah taala waxaynu ka eegaynaa gobolka saaxil labada ugu codka badan inay noqon labada musharax labada ugu sareeya labada ugu codka badan maanta waxaynu isugu soo baxnay waxaynu nahay taageerayaashii labada musharax Shacayb Muuse Allaale iyo Samsam Maxamed Cige waxa weeyaan marka insha Allah taala waxaynu doonayno eesan Allahayna siiyo waxa weeyaan hadaynu nahay reer Dacarburu in badan baynu xildhibaano soo dooranaynay waxa weeyaan inay danaheena garanno in maanta ka dalka iyo dadkaba wuxuu ah in aynu soo saarno oo aynu isgarab taagno ayayna tahay Soomaha dhakhtar malihin layr ma haysano biyo ma haysano 30 sano aanu biyo la'ayn marka waxa weeyaan waxa umusha u daraya ilma u dara marka maanta labada aqooyahan ee aynu soo dooranay ee aynu soo xulanay ee hadaynu reeriinahay inuu kuwaasayna anfacaya oo hormuuda oo ina horgalaya in aynu doorano reedam taagna ee gurbaaleynayay ee galab caraabayay ee shaqeynayay ee sida wanaagsan u soo diyaar garoobay inay labadooda musharax Samsam Maxamed Cige iyo Shacayb Muuse Allaale halkay u kala sharaxiin waynu garanayna imika isu sheegi mayno u diyaarka ahaa aad baan ugu mahadnaqaynaa markan inta dhaafo wan badan baa soo daba socoteen in badan baa taageerayseen in badan baa shirayseen diyaar farxad nooga degmadan maanta aan nimid annagoo wadna musharaxiinta isku sidkan Samsam Maxamed Cige iyo Shacayb Muuse Allaale oo nu galbinayna annagoo wafti ballaarana waxaanu aad ugu mahadnaqaynaa degmadan maanta aanu keenay oo taageerayaashooda mug iyo miisaan la isugu soo baxeen inay maanta aad u codkooda u muujiyeen cududooda u muujiyeen insha Allah codkoodana ay u muujin doonaan haddii alla ka dhigo waxaan aad ugu gubaabinaynaa waqtiga gaaban cadceedoo kulul in maalinta 13 May ballanayno noqoto saad maanta u taagantan cadceedaad ugu soo baxdeen inaad 13 May ugu soo baxdaan codka inagu ridno Shacayb iyo Samsam waxaan u malaynayaa maanta labadaas haday idin soo baxan degmadu waa maalinta guuleysan lahayd guushay alla idinka badin idinka waliba hayso xisbi xaakinkii oo aad u qiimo badan oo xisbi xaakinkii dawladdiya waxaan aad idinku leenahay maanta taageero buuxda muujiseen codkuna sidaa u muuqda haddii alla ka dhigo aad baan idin salaam idinku mahadnaqay degmada ballaaran السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. غير دعربوق حاجة لك عسل حاجة أبوسا حاجة لك عسل وموجسين تاجرنا أبو عيسان هاجر لآلد لما المشرح قالك سمسم محمد عige إياه شعيب موسى الله تاجرنا أبو عيسان يعدد الحاجة aad ku garab taagantiin wadna tustaan ilaahay idinka khayr hadiisi Shacayb Muuse Allaale oo u sharaxan golaha deegaanka ee degmada Berbera iyo Samsam Maxamed Cige oo u sharaxan golaha wakiilada ee gobolka Saaxil iyo walibana wasiir hore Hinda Jaamac Gandhi ayaa iyaguna dadka deegaanadaasi kula hadlay isku lamaan xildhibaanka golaha wakiilada qaranka Somaliland Marwo Samsam Maxamed Cige iyo xildhibaanka golaha deegaanka gobolka Saaxil marsada Berbera Shacayb Muuse Allaale shacbiga qiimaha badan taageerayaasha xisbiga kulmiye haweenka iyo dhalinyarada dhammaan gudida abaabulka
ee taageerayaasha u ah labada xildhibaan ee isku sidkan bacda taxiyat alislaam ilaahay baa mahad dhammaanteed iskale subxaana wa tacaala waxaa farxad inoo ah inaynu joogno maalintii koowaad ee ay ku soo bandhigayeen cududooda guud ahaan xisbilxaakimka kulmiye oo dalka ka ah boqolkiiba 55 codka ku siiyey madaxweynaha jamhuuriyadda somalilan maantana aynu ku soo bandhigayno qof iyo cod halkan maanta waxaa taagan taageerayaasha sidigta u ah shacayb iyo samsam oo runtii ilaa berbera ilaa iyo degmada mandheera aan odhan karo waa baaxadda ugu weyn ee gobolka saaxil waxaan rajaynayaa sida aad bannaanka ugu soo baxdeen bacadka iyo kulaylaha inaad maalinta ay bishu tahay 31 January 2021 aad codka ugu deeqi doontaan soo sidaa maaha qalbi furan ugu mahadnaqaya dadweynaha sharafta leh ee sida qiimaha iyo qaayaha leh noogu soo dhaweeyay degmada Mandheera ee codkooda iyo taageeradooda nala barbar taagan ee saacada kulul ee aad aragtaan na barbar socda nala barbar taagan hiil iyo hoo codkoodana siinaya aad iyo aad baad horta marka hore u mahadsantiin waxa weeyaan nagu doorta dadnimo nagu doorta inaanu kor u qaadno codka dadka aan hadalkoodu meel fog gaarin nagu doorta dhalinyarada waxaan doonayaa inaan ballanno shacabkiina ma doonayo idhagaysta ballan aan naga qortaan oo beritanna tidhaahdaan inta halkaa istaagta istabta miyaanadan hayn tiitaa nagu tidhi naga qora waxaan doonaynaa nagu doorataan oo dantiina inaanu isu sharaxayno dantiina iyo deegaanadaanu ka soo jeedno danyarta jaamacadaha ka baxday ee shaqala inaan wixii karaanka iyaga ah la tafaxaydan doono oo ilaahayna la kaashan doono waa haddii aan soo baxno